xitaa haddaadan garanayn taariikh qoto dheer oo ku saabsan kooxda aan maanta ku qaada dhigi doono kulankeena ayaa ah kooxda Barcelona. Waxay u badan tahay inaad marar badan aragtay halkudhiga Barcelona oo lagu qoray xarfo waaweyn kuraasta garoonka Camp Nou Mexicana Club. Naadigan ayaa si rasmi ah loo aasaasay sanadu markay ahayd 29 November 1899. John Gamber oo ahaa nin Swiss ah ayaa go'aansaday inuu kubadda cagta ku soo bandhigo magaalada Barcelona, isagoo soo dhisay naadigan qiimaha iyo sharafta ku dhex leh taageerayaashooda. Waxay xoog ku hanatay guulo waaweyn iyo koobka Mickey sanadu markay ahayd 1902 iyo weliba koobka Firenze 1910 ilaa 1912. Tani waa maqaawiir ka badan naadi. Halkani waxaan ku koobaynaa faahfaahin kasta oo naadigani u gaar yahay. Fadlan nala sii joog oo ku soo biir janalkeena Bandarbelela. Barcelona ayaa dhistay garoonkeedii ugu horeeyay sanadu markay ahayd 1909 iyagoo weliba isku diyaarinaya inay saaxadaha caalamka qabsadaan. Intii lagu jiray 1920yadii sumcadda iyo guulaha kooxda ayaa kordhaysay. Waxay ku guuleysatay horyaalkii ugu horeeyay horyaalada sanadu markay ahayd 1928 ilaa 1929 iyadoo ay sii kordhaysay sumcadda naadigan. Barcelona ayaa dhisatay garoonka magaciisu shaac baxay ee Camp Nou sanadu markay ahayd 1957. Tirada taageerayaasha uu qaado ayaa waxaa lagu qiyaasaa 90,000 oo taageerayaal ah. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in Barcelona ay ka badbaaday dagaalkii sokeeye ee sanadii 1936. Ciidamadii France waxay dileen madaxweynihii naadiga Joseph Soel sababo la xiriira inuu xubin ka noqday xisbiga bidix. Dhammaan taageerayaasha Barcelona waxay ku faanaan waxa loo yaqaano xilli ciyaareedka shanta koob. Tani waxay ahayd muddadii u dhaxaysay 1951 ilaa 1952 markii ay Barcelona ay ku guuleysatay koobka horyaalka ee Laran, Martini Rosso iyo Eva Duarte. Sanadku markuu ahaa 1988 ilaa 1989 ayaa waxaa ku soo biiray kooxdan xidiga bedelay taariikhda iyo nolosha naadigan ee Johan Cruyff, isagoo markii dambena noqday tababaraha kooxdan. Taageerayaasha naadigan ayaa u muuqday inay ku heesayeen hadda ayaa noqonay koox cusub kadib imaanshihii xidigan aan la loolin karin Johan Cruyff. Waxaa kaloo indhaha laga daboolan karin xidigyadii saameynta weyn ka geystay horumarka kooxdan ayaa waxaa ka mid ahaa Babi Robson, Ronaldo, Rijkaard, Ronaldinho iyo Puyol. Tababarihii ugu fiicnaa kooxdan ayaa lagu sheegaa Josep Guardiola, asagoo muddo xileed u hayay intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2012. Waxa uuna muddo 4 sano ah oo uu xilka u hayay kooxdan u qaaday 14 koob. Engoy, Juan Carlos, Dehu, Nadal, Sanchez Jara dhammaantood waxay ahaayeen lajamo hore oo ilaa hadda aan maskaxda taageerayaasha ka bixin. Kama hadlayno xidigyada waaweyn ee sida muuqata dadku u wada yaqaanaan, waxaan ka hadlaynaa xidigyo waqtiga iyo waayuhu dadku bari waayay. Run ahaantii waxaan filayaa inaad haysaan ama aad ka warqabtaan liiga weyn ee reer Barcelona. Diego Maradona qorsheeyo qoto dheer u fakira ayaa ka mid ah xidigyada ay nasiibka u yeelatay Barcelona. Barcelona ayaa nasiib ku heshay xidiga weyn ama mucjisada kubadda lagu tilmaamo Lionel Messi. Messi ayaa u muuqda mid aan la loolin karin kooxdana siiyay intay mudneed in ka badan xaqoodii. Messi ayaa u dhaliyay kooxdan 672 gool, 266 caawin. Waxa uuna dheelay 778 kulan. Intaasina waxay ahayd in yar oo ku saabsan kooxda aan la loolin karin ee Barcelona ee harka iyo nasashadaba u diiday kooxo badan oo kala dheela horyaalka La Liga. Fadlan intaan haddaad nala soo gaadhay nagu soo biir oo subscribe noo saar janalkeena Bandarbelela.